وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزا الله شيء خير الجزاء وبارك الله في علمه وفي ماله وفي وقته. waxaynu gudageli doonaa su-aalihii inaynu sheekha ku dul akhrino. su-aasha koowaad waxa weeyaan dumar ayaa soo qortay waxay tidhi ninkaygu dagaal iyo dhib ayuu igu hayaa haddaan u adkaysan waayo furniin ma ka dalban karaa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليتقي الله الرجال في النساء رجل دمرك إلهك كبقان إن يجو تلاد جوري هيان ودمرك مرين يا مصروف أيها هيان يا مام البا كان حق ويراي كود بدنين يعني كلفنا الضماء إلى أين الظلميان استوصوا بالنساء خير أبو النبي عليه الصلاة والسلام دمر خير كل رغمة والرجل هذا يشير هاي سوانيان أرنكا سوانيان ونقول الرجل كله حتى كل هذا والرجل كجبل وصف عن ولا رقم سيارنتها سيأون نقطة أرين بالشدة نحدة كفافته ودad ku ay wada gaarsiiyaan qofkii qalloocnaa si khaldan u dhaqmayana si ay waana ugu noqoto. nabigu calayhi salaatu wasalaam markii dumar badan ay u soo cawdeen wadaadeen raggii baa na garaacay ulaa'ika laysu bikhiyaarikum uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ragga dumarkooda garaacaya kuwa idinku wanaagsan idinku khayrka badan maaha. khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. rasuulku wuxuu yiri raga waxa idinku khayr badan ka reerkiisa ugu wanaagsan. dad baan uba arag arinta ku saabsan dhaqanka ninku la yeelanayo xaaskiisa inay tahay arin uu istithmaari karo kamida dhashan karo uu ka dhigan karo cibaado ilaahay ugu dhawaado. galmadiiba ayaa cibaado noqonaysa hadii qofku niyo fiican u raaciyo niyatu taafuf inuu dhowrsoonaado xaaranta uu ka dhowrsoonaado uu niyoodo oo wixii xaaskiisa uu siinayo biilkiibu cibaado ka dhigan karaa hadduu u niyoodo waajib gudasho iyo ajar doon وحتى ما تجعل في امرأتك حتى واحد حاس كاغا افكا u gelinayso ayaa ajar laga qoraya buu nabigu kaleey salaatu wasalaam oo sadaqada dhaqanka wanaagsan ninku hadalka wanaagsan xaaskiisa oo kula hadlayo gacanta wanaagsan dhaqanka iyo maamulka wanaagsan hadduu u niyoodo niyo fiican u raaciyo dhaqanka wanaagsan cibaado isu bedelay iyo qurba ila Allah wuxuu ilaahay ugu dhawaado khayru naasi inda Allah wa qofkuna ku noqonaya dadka kuwa ugu khayr badan Allah agtiisa mid kamida. dumarku ragga agtooda maxaabis bay ku yihiin waana inoo muuqataa taas inan baad reerkoodii ka soo kaxayso aday guriga kugu xidhanta reerkoodii xataa inay soo yara eegto ama soo yara booqato mooyaane xor uma hadda inay gurigoodii iska tagto haddana ay tiraahdo biilkii soo dir xaaskaagii baan xaaladuna waa caadi waxna ma xumeen. إنما هن عندكم عوان نبي محمد بس ساير عوان بمعنى أسيرات دمركو أكتين ويكون قفالين محبوسكم يانو مدلين سفي عن الله رقم سفي عن الله رقم مدين إلهي الدمر كهلا جبقى سفي عنها الله رقم ننكا حاسكي سكحن كوافحن كوجعنحن دينتي سي آخرتي السنة كجوانت نولشي سادوين وكجوانت السجونا نولل راحلة ودجن لكل ماي مر والببوغ يدجال بكتيرة ubadkiisay ka go'aantay oo bal sawiro ubad hooyadoodii aabahooda isku hor dilayaan maxaad ka sawiraysaa qalbi jabka iyo niyad xumaanta ku dhacaysa aqligooda xumaanay iyo fikirkooda garaadkooda kori maayo aqoontooda ka go'aantay akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ka go'aantay marka ninku waa inuu u tudho diintiisa naftiisa noloshiisa reerkiisa ubadkiisa haddii ninku markaa isagu khalad samaynayo gabadhii uu garaacayo gacanta ula tagayo
ama uu bahdilayo oo si xun uula hadlaayo xuquuqdeedii aanu ka soo baxahayn oo aanay sabri karin laha an tatluba alaaq xaq bay u leedahay dalaaq inay dalabto haddii dalaaq ay dalabtana ku dambaabi mayso nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarka raggooda furniin weydiista ee uu tilmaamay inay dambaabeen waa kuwa ragga furniin weydiista iyadoo wax dhibaato aanay jirin ama dhibaato yaroo dee had iyo jeer ala dhacdo oo nolosha iskala socoto loo sabri karo awgeed gabadha tiraa i fur taa weeyaan ta rasuulku uu ka dayriyey laakiin gabadhii haddii dhibaataya kadeeda ay ku nooshahay faalaaqu rubama yakuun axsan min baqaa'i azawaaj wanikaax mararka qaarkood baa furniinku uu xal yahay oo ilaahay subxana wa tacaala uu yihi wan yatafaraqa yugni illaahu kula min fadlih oo hadday kala tagaan mid walba ilaahay fadligiisa iyo nicmadiisa iyo arsaaqdiisa iyo wanaaggiisa u furaya marka gabadha waxaynu leenahay wax dembi dushaada ma haddii xaaladdu saatay wan yatafaraqa yugni illaahu kula min sacaatihi nacam jazaka allahu khayr baaraka allahu fiik waxa uu saa'ilkani leeyahay sheekh ma ku ducaysan karaa ilaahay ou barakada nebi moxamed wax nagu sii qofku ilaahay subxaana wa tacaala markuu baryaayo aadaabta dacwada ama baryada waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano altawasulu ila allah inuu baryada ka horeysiiyo wuxuu ilaahay ugu dhawaado subxaana wa tacaala si uu ilaahay ducada uga aqbalo waxa ilaahay loogu dhowaanayaana waa inuu yahay wax ku soo arooray sharcigii ilaahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey wax ilaahay lagu baryo baryada horteed la sheego ilaahay loogu dhowaado waxaa laynoo sheegay marka koobaad magacyada ilaahay inuu qofku baryadiisa magacyada ilaahay ka horeysiyo ilahay magacyadiisa uu ku ammaano saynu hi ya raxmaan irxamnii ya razaaq irzuqnii allahuma ya shaafi asaluka shifaa waa ka ilaahay hi walilaahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha magacyada wanaaga badan allah baa leh magacyada ilaahay ku caabuda kuna barya waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala lagu baryaa baryada laga horeysiiyaayo loogu dhowaadaa camal saalixa oo qofku uu sameeyey allahuma in kuntu facaltu dalika liajlika faacطinii kada aw faacidnii min kada ilah haddaan camalkaa fiican daraadda u sameeyey waxa iga badbaadi ama waxaasaan u baahana ilaahay u isii sida ay sameeyeen saddexdii nine reer banu israa'iil rasuulkeenu inooga warramay ee godka roobka ka gala ee dhagaxu godkii uu ku daboolay dhagaxaana iska qaadi karin mid waliba camal saalixo u ogaa ilaahay daraaddii inuu sameeyey buu ilaahay ku baryey ilahayna baryadii waa ka aqbalay waxaa kaloo ilaahay loogu tawasulaa qof saalix oo wanaagsan oo wanaag aad ku og tahay dadka qulubtooda ilaahay baa ogay adiga inta kuu muuqata inaad tidhaahdo ii duceeyo oo ilaahay ii bari waa siduu sameeyey cumar ibn khaaab radi allahu canh allahuma inaa kunaa natawasalu allahuma inaa kunaa natawasalu binabiyika ay biducaai nabiyika fatasqiina ilaahay ou ducada nebigaanu kugu tawasuli jir waxaan nebigaanu odhan jirnay ilaahay noo bari markaasaad roobka noo keeni jirta wanatawasalu ilayka bicami nabiyika ay biducaai cami nabiyika waxaanu kugu tawasulaynaa maanta ducada nabigaagii maxamed alayh الsalatu salaam adeerkii oo cabaas ah faqum ya cabaas wastasqi linnaas cabaasow kaco dadka ilaahay roob u weydii wakadalika mucaawiya radi allahu canhu wuxuu ku tawasulay ducadii taabicigii la odhan jiray alaswad oo isagana khayr iyo wanaag lagu tuhmaayey waxaa kaloo iyadoona kamida qofku ilaahay subxaana wa tacaala inuu u xaal sheegto oo ilaahay xaalkiisa iyadoo ilaahay uu uga ogaansho badan yahay haddana xaalkiisa inuu sheego ilaahay waan buka ah ilahay uu ogaya inaad bugto laakiin xaalka inaad sheegtaa waxay tusinaysaa faqri iyo baahi aada muujinayso iyo ducadu inay qalbigaa ka soo gooday iyo allah subxaana wa tacaala inaad yaqiinsan tahay xaaladaada in wax ka qaban karo oo uu bedeli karo waa sidii uu sameeyey nabiy llaahi muusa rabbi lima anzalta ilaya min khayri faqiir markii uu
ka soo cararay fircoon iyo colkiisii qoladii xoolaha waraabsanaysa markuu yimi labadii hablood meesha lagaga tagay xooli u waraabiyey geed hadhla buu tegey meelna waxba kuma oga cadow buu ka soo cararay sahay ma sito meel uu socdo ku jihaysayo gaari ma jirto ilaahay wixii khayr iyo wanaag adii keento waan u baahanahay buu yaani baahidiisu ilaahay subhanahu wa ta'ala u sheegay ama in ilaahay loogu tawassulo lagu bariyo jaaha nabiga ama daatadiisa iyo laftiisa ama qofka nabiga baahin calayhi salaatu wasalaam ama sida la sheegay la yiraahdo barakada nabiga waxaan ugu sii barakada nabigu way balaaran tahay barakada nabiga amalkiisa saalix ah ayaa kamid ah iyo cibaadaadkii uu sameeyay waxa kale oo kamid ah wax ilaahay subhanahu wa ta'ala daatadiisa iyo laftiisa u galiyay marka barakadii wax lagu tawassuli kariyo waxa lagu tawassuli karin bay isugu jirtaa marka iyadoo isku duuduuban oo aan la kala qaadin illa ilaahay loogu tawassulo lagu bariyaa mid sharciyo noqon mayso arrimaha kale aynu sheegnay quraanka iyo sunnada ku soo arooray in ilaahay lagu bariyo qofku ilaahay ku bariyo wallahu a'lam saa'ilkuna waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay qof dhalinyar ah oo aan guurna karaynin marka waxa uu saa'ilkani leeyahay sheekh biyaha taranka gacantayda ma bannaan tahay inaan iskaga keeno sidoo kale ma bannaan tahay anigoo arrinkaa sameeyey oo aan meedhan weli inaan masaajidka soo galo oo aan dhex fadhiisto qofka dhalinyarta ah ee guur aan ka rahayn nabi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam la taliyay ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawaj dhalinyaro kaydin kamide guurka hawshiisa awooda ha guursado bir rasuulku alayhi salaatu wasalaam faa'iidada guurkana waa u sheegay rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri fa inna ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar ويجوركو إسقى ويلالين أو وفك عورتيسا عندها إنه لابنا إسقى ياكو عاونية ومن لم يستطع فعليه بالصوم قفك أنجور أودنا حصوا مبور النبي عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء وأي صوم كوشة وتشبينية ودرين كو ملح لمر لها أي ضعيفين يا صومكم marka mar dhinac waa ka cibaadaystay oo cibaadadu qiimo badan buu sameeyay cibaadada soomka oo nabigu yiri qofka maalin ilaahay daraadi u sooma ilaahay subhanahu wa ta'ala wajigiisa wuxuu ka fogeeyaa naarta jahannama 7 sanadood masaafo loo socdo dhinac kalena naftiisii buu dhowrsooni sabab ugu noqday labada ujeedana waa loo wada soomi karaa litaabudi wa likasri shawa cibaadaysi iyo ila rabo soomka in ilaahay loogu dhawaado iyo in shahwada lagu jabiyo marka taladu waa taa u bixiyay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam inuu naaka xuyadihi noqdo gacantiisa u guursadaana waxa aad u xun weeye ilaahayna quraanka wuxuu ku sheegay in ay dareenkooda ama baahidooda shahwadeed ay gutaan kuwa muuminiinta ahi oo ay ku gutaan si aan ahayn sidoo ilaahay u baneeyay inaana sifaya dhaqan wahay walladina lifurujihim xaafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum hawradooda ilaaliyaan oo baahidooda si xaraana uma gutaan laba baaray ka ilaalin azwaajooda dumarka u dhaxay iyo adoomahooda mid saddexaad ilaahay ma sheegin gacanta uu sheegayo ilaahay kuma darin rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam kuma darin waana dhaqan xun وسيدا علماء دخاتيرتو باي شيغان قفكو ولا فورو كسي قاديو عافيمات كي سنه هلسكو اه xidhibtiisa dambe iyo caaqibadiisa dambe markuu reeriyashana aanu fiicnayn marka waxa waa in la iska ilaaliyo oo nafta xumaanta laga sabirsiiyo dhalinyartu ilaahay daraadii ay uga tagaan xalka nabigu kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamayna waa inay qaataan haddii taas ay dhacdo waa khalad iyo dambi waa in ilaahay u toobad keeno subhanahu wa ta'ala ta kala maydhasha ayaa waajib ku ah oo ma tukan karo isagoo aan maydhan waayo waa qof biyihii taranku ay ka yimaadeen oo waliba ay uga yimaadeen si ay ladda iyo doonis nafeed waxa weeyaan ay ku jirto wala isku waafaqsan in meedhasha ay ku waajibayso oo kii ixtiraamay
isagoo hurda ay ka yimaadeen baaba meedhasha ku waajibaysaa kan maxaad u malayn doonta isagoo sooman hadduu sidaas sameeyo qofku soomkii waa ka jabaya waayo shahwadiisa ilaahay daraaddii ugama tegin allahna subxaana wa tacaala markuu ka warramayey qofka soomani ajarkan faraha badane bilaa xuduudda wuxuu ku helay wuxuu uhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli wixii uu cunayey wuxuu cabayey shahwadiisii ayuu daraadday uga tegay taasuu ajarka ku helay wa hada lam yadac shahwatahu liajli illah shahwadiisi ilaahay daraaddii ugama tegin ta ku saabsan gelitaanka masaajidka qofka junubka ah masaajidka inuu galo wax ba'sii kuma jiro sida fiicani waa inaanu gelin laakiin hadduu galo waa dembaabay ma xaaraan buu sameeyey lama odhan karo oo waa kii yihi caطaa sida saciid ibnu mansuur sunantiisa uu ku wariyey kaana asxaabu rasuuli اllahi yataxadauuna fi lmasjidi wahum mujnibuun saxaabada rasuulku masaajidkay fadhiisan jireen weliba ay ku sheekaysan jireen iyagoo janaabo qabo oo weli aanu maydhan axaadiida markaa diideysa qofka junubka masaajidka inuu galo axaadiid daciif oo nabiga calayh isalaatu wasalaam aan ka sugnaan weeye wallahu aclam saa-iilkanina waxa uu leeyahay sheekh waxaa jirta iskuullo iyo madaaris marka imtixaanku uu bilaabmayo waxay qaadaan 2 bilood oo bil ka midii ay tahay bisha fasaxa arrinta noocaasi ma bannaan tahay sharci ahaan sanado horena kolley waa layna weydiiye waa ka hadalay jawaabteedu waxay tahay haddii marka hore sidaa lagu heshiiyey waalidka lagula heshiiyey sanadkao dhan lacagta waad wada bixinaysaa maalmaha la dhiganayo maalmaha la dhiganayn iskuulka ama madarasada waa wax lagu heshiiyo sida nebigu yihi almuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiintu wixii ay ku heshiiyeen waa inay fuliyaan haddaanu ayn shardi xalaal xaaraantimeynaya ama xaaraan xalaaleynaya allahna waa ku uhi fi lqur'aani اlkariim yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud heshiisyada oofiya oo fuliya heshiis gaar oo noocaasi haddii aanu jirin laakiin uu jiro curfi guud dhaqan guud oo la ysla yaqaano oo qofkaniba si guud uu u og yahay ilmihiisa uu madarasada ama iskuulka qorayo in bilaha fasaxana laga rabo walow heshiis gaariba yaanu jirine isaguna heshiiska hore ayuunbuu la mid noqonaya oo almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan wixii curfi ahaan ama caadi ahaan la ysla yaqaanaa walow yaan laguba hadlinbe oo si gaara aan loogu heshiine wax lagu shuruutamay oo lagu heshiiyey ayuu la mid yahay hadduu xalaal yahay iyo hadduu xaaraan yahayba shardigu oo hadduu yahay shardi xaaraanana dee curfigiina xaaraan buu noqonaya hadduu xalaal yahayna curfigiina xalaal buu isaguna u noqonaya waxaanaan u malaynayaa curfigaa guud inuu jiro hada alcurf alcaam dhaqankaa guuda la ysla yaqaano dadku ay wada og yihiin in iskuulka ama madarasada bilaha fasaxa laga rabo bishoodii oo ubadkiisa inuu ka bixiyo la doonayo waxyaabo kalifayaana waa jiraan waynu ogsoonahay oo macalimiintu dadka shaqeeya marka laga yimaado dee askarta iyo kuwaas gaar ahaan u shaqeeya cid gaara kuwa ugu mushaharka yar bay ka mid yihin waxaa laga yaaba mushaharkiisa o dhan markuu isku daro inaan kirada uu ku jira iyo biilka iyo dada kale ku tacalluqa masaariiftooda inaanu si fiican u wada kafayn waa tasababto markaa naftooda inay dhibaan oo ay raraan oo wakti walba wax uu dhiga macallinku naftiisa waxa weeyaan uu ka jaro marka haddii la yidhaahdo bilaha fasaxa waxba lama siinaayo dee waxay noqonaysaa taasi in qofka noloshiisii cidhiidhi la geliyey ayay noqonaysaa waxaa kaloo laga yaaba iskuulka ama madarasadii meel kiraa inay ku jirto kiradiina waa laga rabaa oo fasax baa la galay macnaheedu ma aha meeshii waa laga baxay kiradii lagaa dooni maayo marka hawlaha noocaasina kolley innaga way noo weheliyaan marka wax baasiya ama wax dhiba ama dembi oo arrinkaa ku jira marka shareecada lagu miisaamo ima muuqdo wallahu aclam saa-iilkanina waxa uu leeyahay sheekh markaan afuraayo timirta inaan kala dhimo oo tiro kala dhimana aan cunaa ma sunnaa sidoo kale ducada waktigaa inaan ku khaas yeelaa iyaduna ma sunnaa in timir lagu afuraa iyadu waa sunne kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yafturu calaa rutabaat waliba timirta nooca rutabka la dhaa buu ku afuri jiray fain lam yajid fatamaraat
hadduu rutab waayana timir oo tan aynu cunnaa ayuu ku afuri jiray fain lam yajid xasawaati min maa hadduu waayana kabooyin biyo ayuu kaban jiray rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa sunihii nebiga qofku hadduu sunno u niyeysto dee ajar buu ka helaya dhinac kalena qofka caafimaadkiisa saas ayaa dan u ah oo timirtu waa wax dheefshiidka aada ugu sahlan isla markaana markiiba la falgelaya oo dhiigga raacayo qofka markiiba tamartii usoo celinaya iyo awooddii soomku maalintii uu soomanaa uu ka saaray timirtaasi markaa inay noqoto witr ama tiro kala dhiman waa xadiid oo saxiixa ku soo arooray ma jiro kul witran aw shafcan ama tiro kala dhiman ka dhig ama tiro isku buuxda ka dhig almuhim timirun ku afur haddaad rutab hashana kasii wanaagsan duco markaa gaara waktigaa la afurayo lagu ducaysto xaaladdaa si gaara loo sheegay waxaa soo aroortay un ducada dahaba adamau wabtalat alcuruuq wahabata alajru in sha allah wallahu aclam waxaa muuqatana ducada in la odhanayo bacda aliftaar qofku markuu afuro kadib waayo dahaba adama dahaba waa ficil maadi haraadkii baa tegey qofku haddaanu weli afurin dee haraadkii muu tegin wabtalat alcuruuq xididadii baa qoyay haddaanu weli afurin xidid ma qoyin wahabata alajru in sha allah taas waa mid xagga ilaahay laga rajeynayo ajarkii inuu sugnaaday marka taasuu rasuulku akrin jiray taas ayuunbaa la akrinaya laakiin riwaayaadka tilmaamaya waktigaa qofku uu afuraya inay ka mid tahay waqtiyada ducada la aqbalo waa riwaayad shaada oo daciifa ah xadiidka abi hureyre axmed iyo tirmidi iyo ay wariyeen lafdiga ama ereyada ansaxay waxa weeye halaathatu laa turaddu dacwatuhum asaa'imu xataa yaftur saddex ducadooda waa la aqbalaa lama celiyo waxaa ka mid a qofka sooman ilaa goor mustajaabu dacwa yahay markuu soomkiisu bilaamo ilaa uu afurayo riwaayad baa soo aroortay xadiidkaa ka mid oo odhanaysa asaa'imu xiina yuftir asaa'imu xataa yuftir weeye riwaayadaa saxiixa riwaayad baa soo aroortay odhanaysa asaa'imu xiina yuftiru qofka sooman markuu afurayo wa hadihi riwaaya daciifa wa riwaaya shaada kamay sugnaa nabiga calayh isalaatu wasalaam wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤاشا aad bay u dheertay laakiin waynu soo koobaynaa waxa uu saa'ilkan yidhi nin ayaa gabadh waalidkii u dooneen masaajid baana loogu meheriyey gabadhuna waxay lahayd uur 5 bilood ah waalidkuna muu ogey 3 bilood kadib ayuu la aqalgalay kadib markay 9 bilood u dhammaadeen ayay gabadhaasi umushay waalidkiina uu ogaaday waalidkii ayaa markaa waxay dhaheen lama soo hor istaagi kartid ilaa aad gabadhaa soo xanaashato sidiina muu yeelin ilmo labaad baana u calool galay meherkii hore iyo muxuu noqonayaa se ma ku dambaabayaa inuu arrintaasi isagoo qariyay masaajidna uu la soo galay sidoo kale meherka dambe qaabkee buu noqonayaa oo dib gabadha loogu meherin karaa gabadhu haddii ay uur leedahay uurkaasi ama xalaala ku yimaada ama xaaraan nin cusubi ma guursan karo ilaa ay umulayso gabadh ciddo ku jirta weeye waa sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay markuu yihi wawlaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna dumarka uurka leh ciddadoodu waxay dhammaanaysaa marka ay umulaan macnaa intaanay umulin oo dhan cidday ku jiraan walaayatu caama fii kulli xaamil aayadduna waxay wada gaadhaysa wada koobsanaysaa ay ka wada hadlaysaa gabadh kasta oo uur leh ayay ka hadlaysaa marka gabadhu hadday leedahay xamlun min azina uur zina ku yimi sida saxda ah daliil ahaan xoog badan meher qaban maayo marka meherkaasi meher saxa maaha haddii gabadhaasi uu doonayo waliba bacda tawba marka ilaahay subxana watacaala u toobad keenaan waa inuu si saxa u mehersado hadduu islahaa saasay wax sax kuugu yihiin amaba se cidii ay u fatwootay ubadkaa hore sidaa ku dhashay ubadkiisii bay noqonayaan waa loogu abtirinaya waxay ku dhasheen nikaaxu shubha wax nikaax shabaho isagu islahaa waa nikaax laakiin wixii dambe inuu iska saxo weeye sida loo saxayaana waxay noqonaysaa gabadha inuu weligeedii weydiisto qabuul iyo iijaab uu jiro weligeedu uu idha waan kuu guuriyey isna uu idhaahdo waan aqbalay markhaatiyaallo meesha ay joogaan ugu yaraan 2 markhaati intaasi ayaa meherku uu noqonaya oo xaflad iyo
meel la isugu yimaadee waxaas waa iska dheeraada wax meherka shardi waa maaha ninku hadduu weliga u tagu idhaahdo inantaada si ii guuri dha waan kuu guuriyey markhaatiyaashiina ay joogaan intaasuu meherku ku dhacay ama wadaad ha jooga ama wadaadyaanu joogin wadaadada waxay dhahdaan markan intaa sheego suuqaad naga xidhaysaa bay dhahdaan dadka aaminsan inaan wadaad la-aan waxba u xidhmahayne wadaadadana wax siiya haddii lagu idhaahdo qabuulkaa iyo ijaabkaasa idinku dhan tahay wadaado badan baa suuq beelaya waaya laakiin dadka in loo sheego wey waayo dadku way xanibayaan mararka qaarkood ba waxaa dhacaysa inay wadaad waayaan oo dabeetana dee sidhada waxba idin xidhmi maayan ila wadaadkii waa maqane arrinta ku saabsan inuu arrintaa masaajidka ka sameeyey caqdiga ama meherka aan saxda ahayn haddii aanu garanahayn maa calayhi shay maa calayhi ismu dembi dushiisa maaha oo islaha gabadhaas iyadoo uur labay haddana ku mehersamaysaa islaha haddii uu garanayo uu bareeray dee qof dambaabay xaaraan u bareeray buu noqonaya macsiyada iyo khaladka masaajidka lagu galaana waa ka wen yahay ka meelaha kale lagu galo facalay an yatuuba ila allah waxaa la gudboon ilahi u toobad keeno wallahu aclam masaa'ilkanina waxa uu leeyahay sheekh waxaa jira hooyooyinka shaqeeya suuqa hooyooyinkaasi waxay ku dhex weysaystaan meelaha ay dadku marayaan oo cidhiidhi ah lugahooga iyo gacmahooguna iyo madaxooga intubana way bannaan yihiin oo way muuqdaan maxaad ugu nasteexayn lahayd hooyooyinkaasi sidoo kale weysadoodaasi wax dembiya ma ansaxaysaa inay cibaadada ku dadaalayaan iyagoo suuqa jooga waa ku mahadsay waana ugu ducayna ilahina subxana watacaala ha barakeeyo waayo dad fara badan baa adduunyada uun ku foogan salaadna aan tukan ama salaadu ay dhaaftaay waktigeeda ka saaran laakiin waa inay ogaadaan hooyooyinka iyo hablahuba suuqa joogaa shaqaynaya inuu jidhkoodu cawro yahay ilaahayna uu amray inay asturaan allah ay doonayaan inay u weysaystaan daraaddii oo ay tukadaan ay raalli geliyaan ayaa amray inay asturaan gacmahooda iyo lugahooda iyo timahoodaba allah baa nebi maxamed ku uhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaa'i lmuuminiin yudniina calayhina min jalaabiibihina waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow dumarkaaga hablahaaga iyo dumarka muuminaadkaaba maradaa weyna jilbaabka lana jidhkooda wada qarinaysaa xidhaan inay quruxdooda muujiyaan jidhkooduna waa wada qurux ayuu ilaahay u diiday oo wuxuu uhi walaa yubdiina ziinatahuna quruxooda yaanay muujin waxaa loo yaqaano tabarujka oo gabadhu jidhkeedii inay muujiso waa dhaqan jiray fi ljaahiliya xijaab la-aantu ilaahay dumarka muuminaadka dhaqanka noocaasa waa ka waaniyo wuxuu yihi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa marka waa kabiira waa dembi weyn in gabadhu iyadoo meesha ay joogaan rag ajanabi ka ah suuqaa cid waliba ay marayso lugaheedii ay muujiso oo lugaheedii ay muuqdaan ama gacmaheedii ay faydo si ay u maydho ama timaheediiba inay muuqdaan waa dembi weyn oo ay tahay in layska ilaaliyo wixii hor u dhacayn ilahay looga toobad keeno weysaduse waa ansaxaysaa waayo weysada iyo arrintani laba shay oo isku xidhan maaha oo ilaahay mu odhan gabadhu iyadoo sidaasa ama ma ogoli in la weysaysto iyadoo gabadhu saayt ama naha nabiyu can ilwuduu calaa xaali kada nebigu waa diiday in xaaladaa la weysaysto saa lama odhan ee arrintanna waa arrin sideeda loo diiday weysaduna sideedaa loo amray wixii loo diiday qofkana waa khalad wixii la amre uu sameeyena waa sax iskumana xidhna wallahu aclam masaa'ilkanina waxa uu leeyahay sheekh waxaa jirta oo aada u soo baratay iminka baraha bulshadu ku wada xidhiidhaan gaar ahaan facebooka barnaamijyo sawirka qofka sawirkiisa uu isticmaalayo kadibna uu ku dhufanayo o odhanayo markaad weynaato saasaad noqonaysaa ama qaabkaasaad u ekaanaysaa sawirkaaga intuu badbedelo sidoo kale uu odhanayo 2 sano kadib baad guursanaysaa gabadhaad guursanaysaa noocaasay noqonaysaa sifaad intuu sheego arrintaasi qeybka ma noqonaysaa oo wax laga sheegayo way iska hadleen gooru guursanayana war uma hayaan markuu weynaado siduu u ekaan doona garan maayaan inuu weynaan doona garan maayaan iyo inuu iminka dhiman doono waxaas waa qeyb iyo wax maqan oo allah subxaana watacaala uu sheegay isaga mooyaane cid kale inaanay ogeyn qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila اllah
wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun waxaad tiraa kuwa samada jooga iyo kuwa dhulka joogaa ma oga mustaqbalka wixii dhici doona allah ayuunbaa og maalinta qiyaamo uu dhici doona lasoo saari doonana garan maayaan laakiin arrinta noocaasi ahi kolley koosh maxaa la sameeyaa waxaan ka warran wayna weydiinayo ya maxaa la samaynayaa waa barnaamij marka hore meesha kusii jira oo jawaabuhu iska sii diyaarsan yihiin oo marka hore malaawaal lagu dhisay almuhim waxaan leeyahay waxaasi waa sida aynu sheegnay waxaa dhici doona mustaqbalka soo socda wamaa tadri nafsun maada tagsibu gada nafna garan maysa berri waxay la kulmi doonto khayr iyo shar waa hadalkii ilaahay subxana watacala marka waxayaan waqti la iskaga qaadin yaa la rumaysan qofka waxaa noocaasa rumaystaa qof faaliyo rumaystay umuu noqonaya waa nooc dee faalka ka mid oo waxaas ile faaliyo wuxuu isku toostoosiyahay faaliyana in loo tagaa ma banaana isna mar hadduu faal yahay in la isticmaalaa ma banaana barnaamijkaas oo haddaad isticmaasho qof faaliye u tagay baad noqonaysa oo wax weydiiyey qofka faaliye u tagay wax weydiiyena 40 maalmood baan salaad laga aqbalahayn haddaad ictiqaado inuu qeybkiiyo waxa maqan iyo waxaad noqon doonto iyo waxaad la kulmi doonto uu sii og yahayna sifadii ilaahay baad siisay sifada ilaahay haddii makhluuq la siiyana waa lagu kufriya waa lagu gaaloobaa marka albaabkiisa ha la iska xidho baaraka allahu fiikum saa-iilkanina waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa leyrhka masaajidka ma lagu jaajar garaysan karaa moobilada adigoon masaajidka ka shaqaynin ama maamulka masaajidka ka mid ahayn ama si kaleba moo isticmaali kartaa waxay ku xidhan tahay leyrhka dad baa iska leh oo masaajidka u waqfiyey waxaanay ugu talagaleen oo waqfiga ay ula qasdiyeen masaajidka iyo hawlihiisa wixii markaa ka baxsani dee idan buu u baahan yahay tusaalehaan masaajidkeennan shirkadda talisom ayaa ku jiri leyrhkeedu ku jiri jiray jazaahum allahu khayran oo sanadadii hore u dhisnaay oo dhan leyrhkeeda ayaa u bixi jiray haddana qolooyin kale ayaa u waqfiyey leyrhka ilaahay khayra siiyo waxa weeyaan indhabirta iyo sompower waa u ducayna jazaahum allahu khayran ilahayna u barakeeyo xoolahooda marka qoladaa hore beriga waa weydiino waxaanu ku nidhi bal ka warrama arrinka noocaasa miyaad ogoshi marka waxa idhaha wax dhiba uma aragno marka haddii fasax la helo waa halkeeda laakiin haddaan fasax loo helin maya adoo masaajidka u yimi inaad ku tukato inaad leyrhkii masaajidka danahaaga gaarka aad u isticmaasho leyrhkiina qof uu leeyo uu waqfiyey qofkiina aan arrinta noocaasa fasax iyo idan aan looga haysan sax maaha taasi wallahu aclam saa-iilkanina waxa uu leeyahay haddii ay kala tagaan ninka iyo xaaskiisu oo ilmana ay isku dhaleen ilmahaasi uu 10 jir yahay qofkeebaa u xaq mudan inuu xanaaneeyo haddii ay kala tagaan aabbihii iyo hooyadii ilmuhuna weli aanu madax banaanaan oo u baahan yahay cid haysa oo korisa oo tarbiyadaysa haddii iyagu ay ku heshiiyaan kooda haynaya wax dhibaato ama laha heshiiskoodaas ayay arrintu ku soconaysaa haddii ay isku qabsadaan oo mid waliba uu idhaahdo aniga ayaa haynaya ilmuhu hadduu yar yahay oo weli aanu garaadsan hooyada ayaa xaq u leh oo hooyada ayaa xadaanada xaq u leh waayo gabadhii rasuulka usoo cabatay ee tidhi ilmaha calooshaan ku siday dhabtoydaan ku koriyey markii uu gaadhay heer uu i adeegi karo oo ceelka meelheblaaye ku yaalla uu iga soo dhaamiyey ayuu aabbihii doonayaa inuu iga kaxaysto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga xanaaneyntiisa iyo korintiisa inaad hayso xaq u leh inta aanad guursan haddii ilmuhu markaa uu garaadsado 10 jir oo kale de waa qof garaadsaday oo ay isku qabsadaan aabbihii iyo hooyadii yukhayaru baynahuma siduu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii waalid baa halkaa lasoo fadhiisinaya waxaa lagu odhanayaa inana waa ma inanay kaasi waa aabbaha taasina waa hooyada kaad adigu doonaysa raac ka uu raaco markaa ee uu doortay isagu ayaa xadaanada iyo ilmaha yar korintiisa iyo hayntiisa xaq u yeelanaya kolley fuqahadu waxoogay shuruuda bay halkaasi ay raaciyaan oo ay ka mid tahay kaa uu doortay wax xunoo dee ilmuhu ku ogiyo uu jeceliyo uu ku doortay oo kale inaanu jirin iyo waxyaabaa la midkaa
laakiin xukunka guud sidaasi ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhigay wallahu aclam saa'ilkanina waxa uu leeyahay hooyaday ayaa saaxiib u tagtaa marka sidee baan ugu qancin karaa waalidkayga inay saaxiibkaasi aanay u tagin sixiroolaha in loo tagaa ma banaana sixiroole faaliye xidigiye fooxiso dhammaantoodba waa isku mid dhammaantoodna waa caraafiin waxay hoos imanayaan magacaas oo waxay dhammaantood sheeganayaan qeybkii waxaa maqan inay og yihiin hooyada markaa waxaa waajib kugu arrinta noocaasa inaad ka waaniso adoo u sheegaya ayadaha qur-aanka ee sixirka ka digaaya ee tilmaamaya inuu kufriyo gaalnimo yahay iyo xadiisyada nebiga calayhi salaatu wasalaam sixirka waxaa la idhaahdo qofka barta iyo qofka ku dhaqma midna inaanu waxa weeyaan ka macaashin nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam dayro uu ka yahay waanada iyo tusaaleyntaas ayaa adiga dushaada ah hadday aqbasho waa alxamdu lilah haddaanay aqbalinna laysa calayka hudaahum walaakina laa yahdi man yashaa aduu cidna ma hanuunin kartid waalidka iyo qof kala toona gaadhsiinunbaa dushaada ah ilaahay baa subxaana watacaala hanuunka haya marka ilaahay inuu bari subxaana watacaala inuu hanuuniyo allah hadduu hanuun la damcay waa hanuunin doonaa haddii kalena ilaahay wixii uu qadaray bay la kulmi doontaa wallahu aclam su-aasha ugu dambaysa ee sheekha aynu weydiinayna waxa weeyaan waxa uu saa'ilkani leeyahay sheekh 7 xubnood ee uu qofku ka sujuudo mid ka mid ah haddii aanu ka sujuudin xukunka sujuudiisaasi maxay noqonaysaa 7 xubnood ee lagu sujuudaa waa wejiga ama salaanta oo sankuna uu ku jiro iyo 2 gacmood iyo 2 jilib iyo 2 lugood farahooda hore in faraha xaggooda hore dhulka la dhigo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi umirtu an asjuda calaa 7 acdaa waxaa la amray sida bukhaari saxiixa ku wariye inaan ku sujuudo 7 xubnood waa amar allah baana amray cid kaloo amartay ma jirto amarkuna wuxuu keensanayaa wujuub ama waajibin waxaa la is amray la waajibiyey marka 7 xubnoodba qofku waa inuu dhulka si fiican u dhigo haddii uu markaa sujuudo xubnihiina qaarkood aanay dhulka gaadhin isagoo awood ahaan gaadhsiin kara sujuuddaasi ansixi mayso sujuuddaasi waa ka maqanta hadduu arrintaa camdan u sameeyey si ula kacana salaaddiisu way buraysa hadday sahwan uga dhacdayna ama ilow ay uga dhacdayna waxay noqonaysaa inuu ku soo celiyo sujuuddaas wallahu aclam وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان